gaarsi nabigii allahayo gaarsi nabigii allahayo habeen galay meel gawaana haddaad giriyaad ku aado bacanaankeeda lahayn istaagto cirkuna godol kugu bila anigoo ku hadlaya afka qurba joogta ka soo shaqaysay hawsha tan mashruucan waxaanu soo wadnay in muddo ah waxa ka soo shaqaysay muasasad la yiraahdo Heart Development oo ka shaqaysa horumarinta deegaamada siiba deegaamada Xudun Awrbogays ilaa Tukaraq oo bixisay dhaqaalaha hadda lagu bilaabayo fikirkiisana lahayd waana hadiyad ay u soo gudbiyeen dadweynaha ku dhaqan deegaanka Tukaraq oo dhan inay ka faa'iideystaan marka mashruuc waa mashruuc caynkaas ah waxaan u keenay dadweynaha deegaanka waana kii ugu horeeyay maaha kii u dambeeyay wax badan oo u baahan in laga wada shaqeeyo oo dadka deegaanku ka wada shaqeeyo oo la iska kaashado ayaa inoo soo socda oo ay ugu horeyso iskuulkani wuxuu noqon doonaa iskuul islaami ah oo noqon doona hoose dhexe waxaynu ku xigi doonaa insha Allah secondary-giisii ilaa jaamacad biidnillahi alkariim marka insha Allah wanagu waxaan idin wadnaa khayrkaas wadna ku mahadsantiin sidaad nooga aqbasheen inoogu soo dhaweyseen waxa ilaahay fadligii munaasabada inoo ku soo beegmay hawlaha waxa weeyaan ilaahay baa watee in maanta macadkii laga yegleelayay magaalada Tukaraq uu inoogu soo beegmo 10kii Carafo u horeysay oo amal saalix oo la qabto 10kii cisho ugu qiimo badnaa waxaynu marka u sheegaynaa nafteena iyo deegaanka iyo dadka muslimiinta dal iyo dibad meel ay ku nool yihiinba in laga qayb qaato dhismaha macadka khayrka ah ee diiniga ah ee dadka loogu faa'iideynayo diinta Ilaahay lagu barayo in laga qayb qaato oo ninka hashale hashiisa kaga qayb qaato oo ka rida ridiisa kaga qayb qaato oo ka gaariga wata shilinkiisa kaga qayb qaato oo ka dukaanka haysta ka ganacsadaha ah ka biilka qaata ka mushaarka qaata ka dibad jooga ka dalka jooga in laga qayb qaato Ilaahay wuxuu yiri wa taawanu ala albirri wa taqwa warisukaashada wanaaga iyo alla ka cabsiga iyo khayrka gacmaha isqabsada oo isukaashada gacmuhuna wada jir bay wax ku gooyaan farkal iyo fool ma dhaqdo laakiin marka inta maskax iyo aqli iyo maal iyo muruq la isu keeno wax badan baa la qabsan karaayo inaga magaalada inta leeg baday dhisanay markuu dadku soo wada digay marka waxaynu ku baaqaynaa qofka muslimka ahi adduunyada waad ka tagaysaa raad wacan kaga tag waxyaabaha marka dhimato ku anfacayana waqafka kamida oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofku markuu dhinto amalkiisa oo dhan wuu xidhmaa saddex shay baa laga soo reebay sadaqad jaari oo ku socoto oo tani ay kamid tahay malcaamada macadka masaajidka guri agoon loo dhisay ceel la qoday waxa waqafka oo dhan weeyaan iyo ilmo wanaagsan maaha ilmo xun mid wanaagsan oo Ilaahay ka beeray oo aad ka tagto sawdkiisa iyo sadaqadiisa lagu soo aqbalo oo ku soo duceeya iyo cilmi wanaagsan oo ummadu ka dhaxashay inta noolayd ama dhagaha lagu qaato cilmi dhagood ha loo qaato ama mid la dhageystay oo la akhristay oo laga bartay ha noqdo iyaduna waxa weeyaan wax la mid ah hawshaan waxa wada muasasad la yiraahdo haad oo u taagan saddexda xaraf waxay ka taagan tahay Xudun haadu eeduna waxay ka taagan tahay Awrbogays tiiduna waxay ka taagan tahay Tukaraq hay'adu waxay ku bilaabantay markii hore si kooban oo dad kooban baa bilaabay waxay caawin jirtay dadka agoomaha iyo caruurta iyo maartay dadka masaakiinta ah marba meel bay soo socotay hay'adu hadda waxay maraysaa inay mashaariicda iyo deegaanada wixii looga baahan yahay ay ka qayb qaadato oo mashruucan kii u horeeyay maaha saddex mashruuc oo hore ayaa ka horeeyay oo magaalooyinkaas Xudun area ila Awrbogays laga dhisay iskuulo masaajido iyo malcaamado kanina waxa nasiib u yeelatay waxa loo eegaa loo xisaabiyaa gudideeda yaanaanu ka mid ah xubnaha ka mid ah oo gudoomiyaal bay leedahay waxay leedahay dad fara badan oo ka shaqeeya barnaamijka qaybta dhaqaalaha ayaan ka tirsanahay marka Tukaraq waxa loo gartay in maxadkaas maanta la siiyo oo ay maartay reer Tukaraqeed baa ay maxadka iska leh iyaga ayaa ka faa'iideysanaya hadii Ilaahay yiraahdo
mashruucuna ma noqon doono kan kii ugu dambeeyey insha allah wuxuu noqon doonaa kuwa sii socda haddii ilaahay idmo barnaamijka socdaa waa barnaamij caynkaasa waa idin mahadinayaa waa idin soo dhoweynayaa عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام محد كان ماشي نوحك كومنت هاي محد يو مساجد محد كاسو سيديد لح فصل يو هول شيرة يو حفيز يو مساجد dhulkuna wuxuu ka kooban yahay cadadkiisu cumuuman guud 45 teedhi 30 intaasaana ka dhismaysa oo loo asteeyey haddii ilaahay garto soo dhowayn iyo mahadnaq aanu u jeedinayno cid kasta oo ka qayb qaadatay ama u timi mashruuca kan khayrigaa hirgelintiisa waan soo dhowaynaynaa culimmada ka soo qayb gashay iyo magaaladu macad ma laha waana magaalo weyn malcaamado badanna way ka furan yihiin in badanna malcaamado way ka furnaayeen marka malcaamadda ardaydu markay qur-aanka dhammeeyaan haddii aanay helin meel culumta diinta islaamka ay ku bartaan waxaa laga yaabaa inay bulshadii ma garanaysaa dib ugu milmaanoo iska qayiraanoo meelaha iska meehanaadaanoo marka waxa weeye qur-aankii ay barteenna ay ilaawaanba laakiin halkan hadda waxa weeye maanta waxaan ku faraxsannahay in maxad culumta diinta islaamka lagu baro ardayda iyo aad ilaa duraad baan naloo sheegay annaga warkuna soo gaaray intuuna soo gaarayna aad baan ugu faraxsanayn ugu mahadnaqaynay ilaahay baa mahadle waxaannu aad ugu bogaadinaynaa qurba joogta isu soo xilqaantay horumarka deegaanka waa degmo maanta magaaladan aynu joognay tukaraq markii hore ku magacaabnay naanays bay ahaydee waa degmo degmadana magac wanaagsan bay la bixi doontaa heer saraa haddii alla idmo waad maqlayseen